annaga waxaan qabnaa sharci la yiraahdo muddo 2 maalmood oo uu soconayo shir wada tashi ah oo soo qaban qaabisay hay'adda socdaalka ee jinsiyadda ee dowladda federaalka ayaa ka qaybgalayaasha oo ka kala socda hay'adaha amniga, garsoorka iyo wasaaradaha shaqada, caafimaadka iyo arrimaha dibadda waxay diiradda ku saarayaan xoojinta wada shaqaynta hay'adaha ka howlgala xuduudaha dalka sida xuduudda bariga, garoomada diyaaradaha iyo dekedaha. gaashaanle sare maxamed aadan jimcaale koofi agaasimaha hay-adda socdaalka ee jinsiyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in hay-adaha shirkan isugu yimid iskaashigooda uu kor u qaadayo sharafka iyo qarannimada Soomaaliya. hay-adahaas iyaga marka wada shaqayn fiican oo ay sameeyaan sidoo kalena ay la yeeshaan maamulayaasha gaadiidka dhulka, cirka iyo badda maaragtay gaarka loo leeyahay waxay keeni kartaa in la ilaaliyo qarannimada, in la ilaaliyo amniga, in la ilaaliyo dhaqaalaha dalka oo canshuurta aan lala fakana ayay keeni kartaa. meeshaan u soconno marka waa halkaa iyadoo oon marka aanan ujeed gaara ka lahayn ayaa waxaan dooranay inaan wada shaqayn ka dalbano hay-adaha ku shaqada leh xuduudaha dalka. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa bogaadiyay dadaalada hay'adda socdaalka isugu xilqaamayso ilaalinta xuduudaha dalka. sharciga qabna awoodda booliisku leeyahay, immigration-kana waa leeyahay, waa law enforcers. dadku waxay kartaan khalad ka fahmeen ama detention ka noqoto ama qabashada ha noqoto ama xareynta ha noqoto ama maxkamad geynta ha noqoto. nidaamka ciidanka booliisku ku salaysan yahay iyo immigration-ka ku salaysan yahay waxa la persona juridisha waxay leeyihiin awood sharciyeysan inta booliisku leeyahay. annagu markaa hayntii inaan u qabanno, baaristii inaan la baarno waa naga dhexaysaa. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir waxa uu ballan qaaday in xafiiska xeerlaalintu si buuxda u garab istaagayo hay-adaha ka howlgala xuduudaha dalka. waxa kale oo mar walba shaqadiisana ka mid ah inuu ka qayb qaato baaritaanka faldambiyeedyada ka dhaca meelahaas xuduudaha ama boortiska iyo dekedaha iyo ha noqdaan iyo ama ha noqdaan airportska ama ha noqdaan baraha kale ee controlka ee muxuu ahaa ay joogaan hay-adahaas. hadduu faldambiyeed ka dhaco min bilow ilaa dhammaad dambiyeedkaas markuu dhaco saacadda uu dhaco oo la arko faldambiyeed cidda ugu horeysa in la ogeysiiyo u baahan waa hay-adaha waa xeerlaalinta iyo maxkamadda. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamuud Maxamed Boonow oo isagu shirkan furay ayaa xusay in isku filnaansho dhinaca ilaalinta xuduudaha ah ay hadda muuqanayso loona baahan yahay in la sii xoojiyo iskaashiga arrintaasi. haddii isla soo wada shaqeeyo waxaa imaanayo tala wadaag, go'aamo fiican, xog aruursi, xog qaadasho, waxyaalo badan ay imaanaya. waxaa wadanka aan la'aanahay hadda waxaa wada shaqeyn inkastoo waxaa u malaysaa meeshii uu fadhiyo inuu asaga isa siinayo marka war fiican waaye title fiican oo wada shaqeyn